horeyn waxaan u mahad celinaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee degan waddankan Sweden oo gutay waajibkoodii dastuuriga ahaa. waxaan si gaar ah ugu mahad celinaa ummadda degan magaalada Borlänge oo ah meesha la iga soo doortay. Borlänge waxay mudan tahay bogaadin maadaama xisbiga cunsuriga ah uu hoos u dhacay magaaladaas. waxaan aaminsanahay in codayntii ay ka qayb qaateen dadka ajnabiga ah oo Soomaalida ay ku jirto ay sabab u ahayd hoos u dhaca ku yimid xisbigaas. dhanka kale waxaan rabaa in aan bogaadiyo oo aan u hambaliyeeyo siyaasiyiintii kale oo ka kala sharaxnaa xisbiyada kala duwan oo ku guuleystay in ay qayb ka noqdaan siyaasadda waddankan oo ay fursad u helay in ama baarlamaanka ama gobol ha ahaado ama degmo ha ahaadee ay soo galaan.